جزاه الله خيرا بدن بعد نو فائديسي إلهي عمرك هكو بركيو عقلك الله هكو بركيو سؤال بدن ومعقول ayaa halkani hor yaalla waxaanan dareemayaa sida u danaynayseen warbixinta uu doctorku ina siinayo halkan dhageystay hor fadhiyo wuxuu yiri doctor baridu indhaha miyay wax u tartaa waa su'aasha koowaad su'aasha labaad waqtiga duhurkii galmadu indhaha miyay hoos u dhigtaa wax miyay yeeshaa aragtida bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaa jira waxyaabo badan oo aan scientifically loo go'aaminin ama aan cilmi baaris ku filan lagu samayn cilmiga iyo hadalkana way kala duwan yihiin laakiin oo cilmi baarista marka la sameeyo wixii facts la arko wala intaas qof waxa lagu tijaabiyey for example boqol qof bari joogto oo isticmaalay boqolna ma isticmaalin indhahoodii baa la baaray markii hore waa la sii baaray markii dambe waa la baaray farqiga inta la yahay u dhaxeeyay marka la yiraahdo baa la oran karaa baridu waxba yeeshaa ama yeesho laakiin sida caadiga ah waxa weeyaan baridu waa dufan weeyaan dufan caadi weeyaan marka wax ay si gaar ah indhaha u yeelayso bal dufanku uu fiican yahay indhaha aad buu ugu wanaagsan yahay vitamin A-ga indhaha vitaminada ugu muhiimsan ay ku shaqeeyaan waa vitamin A-ga vitamin A-gaas waxa laga helaa dufanka hilibka beerka iyo kaaroodka yaa ugu badan marka dufanku wax weyn ma yeelo indhaha wuu wanaagsan yahay bal waqtiga abaaraha marka la joogo waxa weey dadka indhaha nabarro badan baa kaga sameysma oo reer miyigo kale waqtiga abaarta aad bay iyagoo indhaha nabarro badan kaga sameysmeen oo qaar way u indha beelaanba ayaa yimaada marka dufanku indhaha aad buu anfacaa wuu wanaagsan yahay waxa ma yeelo inkastoo dad badan ay ka qaaliyaano dhaqaatiirtu qaar arrimahaas isbedelayaan berigii hore waxa weeye dhaqaatiirtu waxa la oran jiray dufanka iyo hilibka iyo khatartooda aad baa looga sheegay laakiin marar dambe waxa la ogaaday in khatartan badan la sheegaya aanay wax weyn ka jirin yaa la ogaaday cholesterol badan xataa laga sheekeynayo in wax weyn ka jirin dad badan baa hilibka kaga caaganaado yiri cholesterol baan qabaa hilib ma dhawaanayo laakiin hilibka geelo kale cholesterol ma laha wax kale laakiin waxa xaqiiqo ah hilibku inuu yahay sayid dacaam cuntada ugu wanaagsan ugu faa'iidada badan ugu nafaqada badan jirkeena marka indhaha baridu horta xuma yeesho tan kale galmadu qudheeda looma hayo wax daliila in indhaha wax yeelayso maartay dadku maskiin laakiin wax daliil looma hayo جزاه الله خيرا دغستهان وحنا ويديي biyaha gadaasha ku furnaa xididada dila maxaa ka dawaa ama maxaa sababa biyaha xagga dambe gale khatarta ah horta waa wax iska yimaada waxa la yiraahdaa laba nooc way u kala baxaan nooc waxa weeyaan waa open angle glaucoma la yiraahdo sababta keenta lama yaqaan laakiin waxa jira waxa la yiraahdaa familiarity familiga wax laga yaabaa in dad kamid ah dhowr qof lagu arko aabihii baa lagu arkayaa carruurtii laba kamid ah lagu arkayaa waxa weeyaan ilmuhu awow qofkii uu maartay awowga waa lagu soo arkayaa marka familiarity jirta ama wax laga yaabaa aabo hadduu indha beelo carruurtiisa kala badh ama in ka badan inaynu biyihii laga helo ama hooyada indha beelaysa carruurtiina kala badh laga hela laga yaabaa marka waa wax familiarity ah marka qofka aabihii ama abtigii ama adeerkii ama eedadii ay biyaha lagu sheegay isaga waa riski factor buu leeyahay waa inuu la xiriiraa dhaqaatiirta sanadkii mar jeekan sameeyaa waa dadka ay ku badan tahay ama laakiin sababta rasmiga ee keentay ilaa hadda lama yaqaan way jiraan nooc baa jira secondary glaucoma la yiraahdo oo sabab keento tusaalaan nabar xoog la ku dhaco kale nabarka xoog leh meelihii biyuhu mareen buu xidhayaa ama dhiig ku furaya dhiigiiba meelihii xidhaya glaucoma imanaya oo biyo ba kacaya aad u badanaya taas secondary glaucoma la yiraahdaa iyadu wayna sida tan isma qarisee xanuun badan bay keentaa markiiba degdeg ba wax looga qabtaa inta badan laakiin kan aan isqarinaya dhuumanaya inta badan waxa la yiraahdaa tuuga aragga xada tuuga ma soo jeedo ku xadaya adoo ogeyn buu ku xadaya marka tuuga aragga xada
kaa lama yaqaana sababta rasmiga ah ee keenta lama garanayo sidee loo daweeyaa waxaa loo daweeyaa pressurekaas in hoos loo dhigo for example waxaan idhi cabir buu leeyahay lagu xisaabtama cabirkaas waxa weeyaan 4 hadduu kor dhaafo qofka biyaha ku furmay hadduu ka hooseeyo biyuhu waa caadi haddii biyuhu ku furmaan waa cabirkaa la dejiyaa 8 buu tagay dawooyin baa la siinayaa xabadda waa la siinayaa dhibic baa la siinayaa haddii ku filaato soo dejiso taas wadaya haddii xabaddaas taxtar weydo 2 laga dhigayaa haddii wax tar weydo 3 baa laga dhigayaa haddii wax tar weydo qalliin baa loo sameeyaa biyaha waa laga xidhayaa ama dadka miyiga ka yimaada dawooyinkan waa dawo qaaliya dawooyinkan biyaha loo isticmaalaa way ka qaalisan yihiin dawooyin kale $12 $15 ay noqon karaan marka maadaama qofkii aan awoodi karin inuu joogto u qaato qofka waa laga xidhaaba waxa la 2 bilood dawada soo qaado marka biyuhu ka yaraadaan soo noqo waa laga xidhayaa marka waa laga xidhaa halkaas isku daayeen maanta waan garanay su'aal muhiim ah wuxuu ku leeyahay dadka waaweyn indhihii oon xanuunayn hadday ilmaynayaan haddana arrintaa haddii carruurtii la yidhi cudur ma aha qof weyn oo haddana ilma ka daadanaysa indhihiina xanuun aan dareemaynin arrinkaa maxaa lagu macnayn karaa jazakallahu khayr qofka markuu weynaado 2 arrimood baa isugu darsamaa waxay ilmadii la soo saarayay way badanaysaa dalooladii ilmadu galaysayna way soo dhaadheeraanayaan ma islaamaha inta badan 2 naas baa halka ku yaala yidhaaheen 2 naas waa tuubooyinka ilmadu gasho marka hore jirkay la sameeyeen yihiin marka dambe kor bay soo dheeraadaan marka 2 dalool marka ilmadu galayso afkay saa isu saaraan markaas ilmadii nuugaan inta u dhaxaysay nuugayaan inta markastoo ilbirqsato inta yar u dhaxaysa 2 dalool ay nuugayaan marka qofku horku weynaado dhowr rood baa iman kara bahladii baa sheer dhaafi kara maartay 2 dalool ayaa sheer dhaafi kara inta soo dheeraadaan waxa dhici karta oo kale markay soo dheeraadeen biyo way ka hooseeyaano maartay inay biyo maartay isaga ka soo dheeraanay ka soo kormarayaan marka adigu ciladu waxa weeyaan dalooladiina sidii la doonayay drainage kuma sameynayaan oo biyo ma qaadayaan biyo la soo saaray way badanayaan laakiin wax dhibaato ah ma laha qofka waxa loo qoraa dawooyinkan ilmada yareeya maartay ee dufankan indhaha ku badiya kuwaas loo qoraa kuwaas qaata kuwaas ka kala daada oo joogto ah laba dhageyste oo 2 su'aalood oo isu dhow ina weydiiyay waxay leeyihiin muraayada digriga indhaha loo qoro ma soo celin kartaa digriga indhaha waxaase kaga maarmo oo muraayada ma jirta waa 2 su'aalood isbarkan in muraayada laga maarmi karo iyo haddii muraayada la isticmaalo inay soo celin karto aragii horta arag waa 2 nooc araga fog iyo araga dhow araga fog wuxuu ka lumaa qof kasta uu ka lumi karaa laakiin dhalinyarada ayaa u badan intuu ka lumo qofku intuu dhalinyaro yahay waxa laga aragiisa fogaa inuu 30% noqdo 40 noqdo 50 noqdo ujeedadu sababta keentayna waxa weeyaan indhihiisa waaweyn inta badan waxa weeyaan qofka muraayad fogaana qaadanaya marna waxay noqotaa plus marna minus marka minuska tahay waxa weeye qofka indhihiisa waaweyn oo iftiinkii la rabay inuu shabakada gaaro ma gaarayo ishiisa ka weyn meel wuxuu ku dhamaanayaa muraayadana marka maxay qabanaysaa iftiinka bay tuuraysaa oo shabakada gaarsiinaysaa qofkii argiisa 30% ka ahaa ayaa 100 tagaya marka qaarkood waxaad arkaysaa qof argiisa 5% kaliya yahay oo wajiga qofka arkaynin marka soo hor fadhiyo laakiin markuu xidho iftiinkii wuxuu gaadhayaa halkii loogu talagalay 100 buu tagayaa marka qofkaas waxa lagu taliyaa muraayada inuu mar walba xidhnaado oo dhigin waayo muraayadaas argiisa haysaba hadduu dhigo wuu khasbiyaa indhihii khasabka oo khasbiyo indha xanuun madax xanuun mirgi xanuun baa imanaya marka waxa muhiim ah qofka haddii muraayada loo qoro oo daadiisuna yar tahay waliba hadduu carruur yahay aad buu ugu khasban yahay laanna waxa weeyaan ilmuhu markuu yar yahay 5 jir 6 jir yahay ayaa maskaxdiisu qaybta aragga oo kortaa haddii marka isagoo u baahnaa muraayad loo qoro aan muraayada qaadanin qaybta aragga ma korayso qofkuna indhihiisu wuxuu noqonayaa lazy eye waa la baadhay indhihi caafimaadkooda 100% laakiin arag ma laha maxaa keenaya ishii baa lazy eye noqotay ama indhihi baa lazy eye noqdo markay kori lahaayeen yaani korin marka waxa muhiim ah carruurtu intay yaryar yihiin haddii muraayad loo qoro muraayada waa inay qaataan haddii ilmahaas qaadan waayo muraayada
hadhow markuu weynaado muraayadda waxma tarayso waayo santarkii aragga keeni lahaa ayaan korinba oo halkii la rabay aan gaarin meeshii loogu talagalay qodobka labaad waxa weeyaan qofku wuxuu hadduu 40 kar yahay muraayad taas waxa weeyaan aragga fog ee minuska ah waxa jirta arag indhahooda yaryar yihiin aad yareen dadkaas waxa loo qoraa muraayad blasa oo aragga fog ah aragga dhowna markuu 40 gaaro qofku wuxuu u baahanayaa muraayad akhriska u baahanayaa inta badan boqolkiiba 90 dadku uma baahdaan aragga dhow ilaa 40 ka gaaraan 40 markuu gaarana qofka haddii araggiisa fog uu fiicnaa muraayad waa compulsory inuu qaato aad buu ugu baahanayaa hadduu iska daayo wuu yeeli karaa laakiin wuu khasbayaa khasabkaasaa keenaya marka indha xanuun badan keenaya daal badan keenaya qofka waxaa laga yaabaa markuu 2 bog akhriyo inuu ku daalo markiiba laakiin hadduu muraayaddiisa xidhan lahaa muraayaddaas inay anfac lahayd oo uu maarata muddo sii haysan lahaa waa soo dhadhowya waqtigii wuxuu i weydiiyey dhageystahani marawaxadda ayaa indhahayga dhibta maxaan yeelaa indhaheen waxay leeyihiin ilmo dufan leh oo borotiin leh marka dadku ay ku yar tahay waxa weeye in yar baa u hadhaysa for example intii bay ka qaadanaysaa marawaxaddu ilmadii dufanka lahayd borotiinka lahayd ayay kaa kala yaraynaysaa haddaad full tahayna waxba kuma yeelayso haddii marka hore ilmadu kugu yarayd dufanka leh borotiinka leh intii bay kaa qaadanaysaa marka waxaad bilaabaysaa inaad maaragtay inaad isku qabqabato oo aad u dareento iyo dareemaysaa marka waxaan dadka kula talin lahaa inay hurdo wanaagsan seexdaan habeenkii qofka hadduu habeenkii hurdo wanaagsan seexdo indhihiisa intaad hurdo ilmada dufanka leh ee borotiinka leh berri ay ku shaqayn lahaayeen ayay soo saarayaan indhahaagii waan gartay wiil baa wuxuu leeyahay markaan carruurta ahaa waxaan ku cayaari jiray cadceedda oon marba fiirfiirin jiray aragtidaydii waxbay u dhintay maxaad igula talin lahayd iminka inaan yeelo su-aashiisa labaad waxaa jirta buu yidhi markaan hareeraha eegis idhaahdo hadh yar baa indhahayga la warwareegaya oo ay hor socsocda hadhkaasi wax dhibaataa miyuu u leeyahay indhahayga qoraxda oo la eegaa indhaha wax weyn bay yeeshaa weliba haddii qoraxda madoobaataa ugu daran markan kale qofku isagaaban ku xamili karin inuu cabbaar eego ay wax ku yeeli karta shabakadda laakiin markay qoraxda madoobaato waxa weeyaan rays bay soo daysaa shabakadda barta wax laga arka gubaya marka markii aad qofka saawiga sankiisa toor arkaysaa santarka halkaas ka gubaysaa markaad ka soo jirto waxa laga yaabaa qofka wejigiisa ma arkaysid hareeraha qofku wuu arkaya laakiin wejiga ma arkayo marka waa khatar weyn weeyaan qoraxdu hadday madoobaato in la eego indhabeel khatarna way keentaa oo qofka xitaa akhriskiisii wax ma akhriyi karo lan waxa meeshii uu wax ka arkayay santarkii wax kama arkayo hareerahana wax ka arkaya barti baa gubatay oo dalooshatay wayba dalooshamaysaa rayskaasa daloolinaya marka waa khatar weyn qoraxda in markay madoobaato in la eego qoraxdan kalena in la eego ma wanaagsan iyana dhibaata keeni kartaa waxa laga yaabaa dee in la cabira noqonaysa waxa ka dhiman la eego laakiin maaragtay dhib badan bay keentaa qoraxdu qodobka labaad muxuu ahaa halka waxa jira waxa la yidhaha flies indhaheen xab baa ku dhex jira xabka wuxuu sameeyaa waxyaalo duqsimoodo kuwa soconaya marar badan markaad meel cad eegto ama caanaha eegto oo kale ama aad warqad cad eegto waxaas dhibaato ma laha mana baaba'aan duwana uma baahna waxna kuma yeelayaan mustaqbalka sheekh maxamed wuxuu weydiinayaa dhanjafka xanuunkan dhanjafka aynu idhaahno dadka qaba had iyo jeer aragtidooda caad baa ka horeeya maxaa sababa horta dhanjafka wuxuu ku yimaadaa xididada ereyadan dhan isha xididadeeda dhinacaasoo dhan xididadooda ayaa mar horta dhiigu ka xidhmayaa markuu dhiiggii ka wada xidhmo araggii marka wuxuu noqonayaa arag heerheera ilaan ishu dhiig bay ku shaqaystaaye araggii shucaab waxbaa ku furmaya waxa hilaacaad moodaa ku furmaya ama araggii baa hoos u dhacaya aad hoos ku dhacaya cabbaar markii dhiiggaas xidhnaado ayaa haddana xididadii hal mar bay furmayaan xoog u furmayaan dhiig badan baa la soo deynayaa oo qofku madax xanuunkana ku badanaysa aad ugu badanaysa laakiin markaa wixii bay ka ba'ayaan marka dhanjafku bilaabanayo calaamadiisa ugu horreeya waxaa ka mid ah in aragguna uu saa wax u noqdo dadka qaarkood baaba araggu aad waxyaalo weyn ee dhanjafkaasi gaarsiiyaa marka waa qayb ka mid a dhanjafka ayay ka mid tahay waxa weeyaan xididada xidhmaya marka hore su-aal kale oo dhegeystuweyna weydiiyey wuxuu leeyahay guurka faraha badan indhaha wax ma yeela
guurka faraha badan dhallinyarnimo keenaa marka indhahana qofka dhallinyaro ku noqdaa jirko dhan dhallinyaro ku noqdaa waxa weeyaan wax dhibaato ahna ma keeno insha allah runtii guurka horta waa sunnihii ambiyada weeye waa sunnaha ambiyada guurka faraha badani haddii uu nolosha bini aadmiga iyo muslimiinta dhib ku leeyahayna rasuulkaa ka digi lahaa laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ambiyada qaarkood baa 70 dumara qabay qaar baa 100 qabay shareecadooda u banaynaysa marka haddii guurka faraha badani uu dhibaato keenayo mudankii ilaahay soo diray baa ummadda uga digi lahaa marka qofku de haddaanu isagu mas-uuliyadda ka soo bixi karayn waa baab kale wain khiftum an laa tacdiluu waaxidatan inaad mid ku adkaysataa waa baab laakiin haddii aad kartidaa leedahay su-aasha ugu dambaysa ee ay soo weydiiyeen waxa weeyaan mid baa ka dambaysa xasaasiyadda ama indhaha xasaasiyadda ku dhaca inta badan maxaa keena maxaase lagu daweeyaa ya waa iyadoon labadaba isku xasaasiyaddu bay ka wada hadlayaan بسم الله الرحمن الرحيم xasaasiyadda waxay ka mid tahay waxyaaba ugu badane dadku aad u dareemaan waxa laga yaabaa qofku noloshiisa dhan inuu dareemo aniga waan leeyahay waxa laga yaabaa inaan habeen walba keenay cuno marka ama samboor qof ha ku keento ama indhax cuncun ha ku keento ama jirkaba xasaasiyadda ka qaade xasaasiyaddu aad bay u badan tahay waana cudurrada aan tegayna soo noqnoqda iyo ka mid tahay waxay ku badan tahay carruurta da-doodu yar tahay inta ay 15 sano ka gaarayaan iyo aad ugu sii badan tahay indhaha marka dawooyin loo qoraa jira oo qofka aan waxba yeelayn iyo qaar wax yeelay labadooda jiraan marka wax muhiim ah in dhakhtarka lala tashado laba nooc oo dawaa loo qoraa mid xoog badan oo markiiba xasaasiyad ka jaraysa laakiin haddii muddo dheer la wado dhibaato keeni karta iyo mid aan dhibaato lahayn oo qofku muddo dheer wadi karo laakiin aan awooddeedu xoogay yar tahay marka dawooyinkaas waa la siiyaa allahu mustacaan waxyaabaha xasaasiyadda keeni karana qofku inuu ka hortagaa muhiima waxa ugu badan ee keeni kara waxaa ka mid ah dhaska iyo siigada iyo cuntooyinka qaar iyo cadarrada iyo waxyaabahan dhaashyada la marsado ama silidaha ama saabuunaha inta way keeni karaan qofku marka inuu ama cuntooyinka la cuno qofku inuu kala ogaadaa wanaagsan oo kala barto wixii uu xasaasiyadda ka qaadayo oo markaa wuxuu iska ilaaliyo wabillahi tawfiiq su-aasha ugu dambaysa aan doctoorka weydiinaya waxa weeyaan dawooyinkan dhakhtar la-aan la isticmaaliga indhaha maxaa tala ka bixin lahayd muraayadaha la qaato oo hadhka ah oo aan dhakhtar kuu qorin ee muraayad ahaan uun dadku ay ugu xaragoodaan iyagu wax dhibaataa indhaha ma u leeyihiin bismi illahi raxmaan raxiim dawooyinku laba oo kala baxaan indhaha loo isticmaalo qaar warqad la-aan baa la bixiyaa oo farmasiyada bixiya waa noocan indhaha qooyo kale hadda dawooyinkan aan leenahay indhahii qooyaan oo dufan ka dhigaan oo qaleelka ka bixiyaan kuwa looma shardiyo inuu dhakhtar qoro tusaale ahaan adiga lagu qoriyaa ama saaxiibkaaba maaragtay indha qaleelkaasa dareemaysaa farmasiga tagaysa ka soo qaadan kartaa waayo iyagu haddii weliga aad isticmaalayso wax dhibaato ah ma laha ama dawooyinkan kale ee antibiyootiga ah ama steroidka ah ama dawooyin kale indhaha loo isticmaalo waa khatar qofku inuu iska isticmaalo ama iska iibsado marka dee caalamkana marka la eego farmasiyada kala sheega kuwana lama ogolo kuwana lama maartay qofku uu qaadan karaa waxa ugu muhiimsan waxa weeye kuwan qaleelka indhaha ka beenaya maartay dufanka iska qaadan kartaa laakiin haddii xanuun aad ku aragto indhuhu waa qaale wax wanaagsan dhakhtar kuugu dhow inaad u tagto oo isagu uu talo ku siiyo waxba laga yaabaa inuu dawo la-aan waad ku bogsataa bay dhici karta taladiisa insha allah muraayadaha soo hadhay muraayadaha har kale dadka jooga dhulka kulaylaha ah ee qoraxdu ku badan tahay 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo inta qoraxdu kulushahay aad waxa u wanaagsan ee muraayada madow xidhaan ama hadh leh laana waxa weeyaan iftiinka badan qoraxda waa ultraviolet buu leeyahay marka wuxuu soo dedejiyaa caadka indhaha gal uu soo dedejiyaa teed kale dareeshan iyo siigadan iyo waxaan dhacayna nabarrada ku samaysaa indhaha anagu reer